sida ay marar kala duwan xaqiijiyeen dhakhaatiirta iyo cilmi baarayaasha kala duwan ee caafimaadku waxaa jira cuntooyin iyo dawooyin aan qaadashadooda loo ogolayn hooyada ilmaha naaska nuujinaysa sababtuna ay tahay mid la xidhiidha xaalado caafimaad darro oo ilmaha ay nuujinayso soo gaari kara sida xasaasiyad iyo wixii la mid ah ama ay saameyn ku yeeshaan caanaha naaska oo ay dhici karta mararka qaarkood inay yaraadaan ama se uu naasku guro qormadan ayaa waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah cuntooyinka ay khubarada caafimaadku sheegeen in cunistoodu aanay u fiicnayn dumarka caruurtooda naaska nuujiya waxaananu ka soo xiganay qormadan majalada arrimaha bulshada ka faalloota ee sayidati kalluunka noociisa libaax badeedka ah iyo noocyo kala duwan oo kalluunka ahba waxaa jirkooda u tallaaba maadada loo yaqaano mercury oo ka soo raacda badda ay ku dhex nool yihiin waxaana caafimaad ahaan la ogyahay in maadadani haddii ay jirka ku badato aanay u fiicnayn guud ahaan caafimaadka aadanaha haddaba haddii ay hooyada ilmaha jaqsiinaysa ay kalluunka isticmaasho waxaa imanaysa cabsida ah in maadadani ay jirkeeda ku badato taas oo ilmahana u raacaysa caanaha uu hooyadii ka nuugo jirkiisuna uma adkaysan karo xaddi kasta oo maadadan merkurida ah cuntooyinka gaaska leh waxaa ka mid ah khudaarta keenta gaasta sida basbaaska iyo kaabashka waxaanay khubaradu aaminsan yihiin in cuntadani ay sida qofka cunay oo kale ilmuhuna uu hooyada uga jaqayo oo ay keenayso gaas cabitaanada leh maadada covain cilmi baarayaasha ayaa waxay ku sheegeen qormadan maadada covain ee uu qofku u isticmaalo si ay uga helaan firfircooni dheeraad ah iyo tamar sababta in aanu qofku hurdo dareemin amaba se aanu seexanin ayaa ilmaha hooyadu ay jaqsiinayso ay ugu gudbisaa oo ay xaaladahaas oo kale ku keentaa ilmaha covain waxa ay ku jirtaa shaaha bunka iyo cabitaanada kale qaarkood waxaanay dhakhtaradu hooyada kula taliyaan inay iska ilaaliso inta ay ilmaha naaska jaqsiinayso si aanay khalkhal ugu keenin jadwalka hurdaha ee ilmaha toonta inkastoo ay toontu tahay dawo dhaqameed muddo badan soo jirtay isticmaalkeedu cuntada lagu sameeyana ay dhadhan iyo ur wanaagsan u samayso ayaa haddana baaritaano caafimaad oo la sameeyey lagu xaqiijiyey in caruurta qaarkood ay si adag u diidaan naaska hooyada haddii ay dhadhamiyaan toonta arrintaas oo aan caafimaad ahayn u fiicnayn caruurta waxaanay ku tilmaameen dhakhaatiirtu in haddii laga maarmi waayo ay hooyadu ugu yaraan 2 ama 3 saacadood u dhaxaysiiso cunista toonta iyo naasnuujinta ilmaha liinta noocyada kala duwan ee liinta sida liin macaanta liin dhanaanta iyo liin beendariintu waxaa ku jira maadooyin ay khubarada caafimaadku sheegeen in ilmaha aadka u yar ay ku keeni karaan xasaasiyad sida maqaarka oo booga yeesha iyo calool olol sidaa awgeed maadaama uu ilmuhu ka jaqi karo maadooyinka naaska hooyadii waxay khubaradu kula talinayaan dhammaan hooyooyinka muddada ay jaqsiinayaan ilmaha inaanay cunin liin dhanaanta ugu dambayntiina hooyo kasta waxa uu barnaamijku kula talinayaa inay kala tashadaan cuntooyinka ay cunayaan xilliga naasnuujinta dhakhtar aqoon dheeraada u leh